dhexdeena la kala dhaygo oo nafarkii xagga u tuula xitaa shimbir ogaadeen hadday soo wareegto waana madaxa ka toogataan nabadtaana hal ugaadhi hadday tuulo ogaadeen leeda ka soo tolo waa dhawaana dishaan bila aadan baad ka hadlaysaan marka waxaa la idinka rabaa go'aan qaata go'aan waa inaad qaadataan iska daaya sacabatubkan iyo walaaltinimadan iyo been abuurkan aad ku jirtaan riyadan aad la hurdaan iska daaya riyadan waanaad ka baxan jid waaqo wallahi riyaad ku jirtaan oo billahi riyaad ku jirtaan oo meel aan walaaltinimo oolin meel aan tolnimo oolin meel aan wanaag oolin baad ka shaqeynaysaan nabadgelyada iyo midnimadu waxa ku fiican tahay marka anigu aad ka shaqeynayso adna aad ka shaqeynayso haddaan anigu aan ka shaqeynaynin shalay tolwadaadka cag jira markuu gobolada mari waad arkaysid calankan uu wata leeyahay calanka dawladda waxa ugu dambeysay araarsa ugu dambeysay indhiinaad ku wada arkaysiin maridii kale lagu soo dhaweeyay waad la socotaan marka waxa weeye nin laba sini kaarlo laba calan wata oo haddana kula mid baynu nahay isna keenayso isma bixinayso inaad aniga oo laba calan wata oo calanka aad watana kula wata ku kalena wata aniga oo ra'yiga aaminsan tahay ma ra'yi kale aaminsan fikradda aad qabtay inaad adigu aad leedahay midnimo Soomaaliyeed baan ka shaqeynay aan dadka hoosta ka leynayo yaa waxaas waa wada af Soomaali weeye marka waxa weeyaan go'aan qaata meesha waxba lagu wadaagi karo laba mid noqda inaad gobolkan ku baabadaan oo waxa weeye wiilwaal maankii uu wadankan uu ku halgabay dadka uu watay ma dhannayn 10,000 oo qof 10,000 oo qof mayna dhannayn maanta idinku heli kara 2 milyan oo dhalinyaro ah oo hub nooc kasta ku dagaalami kara ba waxaad leedihiin waxa weeye nabadgelyadu waa laga maarmaan war nabadda ma dadka ma ku qasbaysan jid waaqo ku qasbaysan ummadda Soomaali galbeed idinka nabadgelyo ku qasbaya Soomaa idinka ayaa ku qasbaya in la midoobo Soomaa haddaad ku qasbaysan ummadda nabadgelyo oo ku qasbaysan in nabadgelyo aad dadka qasabku aad ku kaga dhaadhicisaan iyo cadaalad dadkiina la leenayo dhalinyarada la leenayo la curdanayo wada professorada hawo ooyina aamusa go'aanka waa inaad qaadataan wallaahi waxa meesha yaalay waa ducufnimo 100 jeer horena waa idin sheegay idinkana waxaad u sacabatumaysaan ogaadeen oo cadowgiina koobaad ah oo cadowgiina labaad oo shaydaan ah idinka soo horeeya baad waxaad weeyaa ad idinku hadii xugmay maanta aad leedin walaalaanahay 100 jeer horena war walaalnimo meeshan ma taalo ee balaaya taale dib ma uga baxaysan ma aag bedelanaysan jid waaqo ma aag bedelanaysaan go'aanka aan qaadanaysaan go'aan rasmi ah ma noqonaya ma oranaysaan adeerow ala Itoobiya wixigeed war anagu meeshan ma rabna in caasimada hadee Soomaali meel aliya meesha ku qanacsan tahay kursiga kala gashanaade dhiigu ka daadanayo meel aliya meesha halala aad ma dhahaysaan oo magaaladan iyada ama dadka runta ma u sheegaysaan inaan go'aanka ay qaateen aad la qaadanaysaan ee colaada taasi waa taas horta fariinta aan toos ugu gudbinayo waa dhalinyarada goobjoogga ee magaalada Jigjiga jooga saaka dhalinyarada magaalada Jigjiga saaka joogta waxaan fariinta aan idin faray waxay tahay horta geeridu waa xaq weeye dhamaantiina waa wada dhimanaysaan dhamaantiin ku qurba jooga iyo ku banaan jooga iyo ku gudaha jooga nin walba horta qabri baa la geyn doonaa oo lagaga iman hadii la yiraahdo go'aanka aad maanta qaadanaysaan waxay tahay nin shacab baa la dilay aan horeba waxa idin yiri war maalinka nin shacab la dilo nin shacab u xiira maanta waa in la maqlo nin shacab ah oo nin waliba aqoonyahan ah ay dariiqa qaabka aad doonaysaan ku dileen nin waa inaad soo nafta kaga qaadaan maanta hadduu doono gurigiisa nabad iyo caan ha joogo hadduu doono goob waxbarasho ka soo socdo sidii doonahaado waa inaad furisaan dil noocaas maanta inaan cadceedu ka dhicin meeshan sharci lagu kala baxaa ma yaalo haddaad aaminsantiin in nin la idin soo qabto sharci la idin horkeenayo oo sharci la waxaanaya ma yaalo ilama aad marka maalin nin loo xiiro aad nin u xiirtaan maalinka nin la dhaawaco nin intaad qabataan meesha ugu haboon aad ka biraysan oo ka dhaawacdaan ilama aad dariiqo go'aan noocaas qaadataan mooyaane horta ha suginayada sheekadaas horena waa idinku sheegay maanta nin baa loo xiiray marxuun Allah u naxariisto Rabiic waa u xiireen waa aasan yahay maanta waxa la idinka rabaa inaad nin u xiirtaan
go'aanka maanta waa inaad qaadataan dhalinyarada jigjiga joogta maanta waa amarka waa inaad qaadataan haddaan joogi lahaa wallaahi ha lay xiire wallaahi oo bilaahi watallaahi maanta nin baan u xiiri lahaa waana xaq weeye inaad nin aad dishaan ood ku jahaatantaan ood gowracdaan ninka dhashiina laynaya inaad dhashiisa laysaan waa sharci weeye aniga aakhare ha lay weydiiyo ka baxa idinku waa inaad nin u xiirtaan maanta aakhare anaa lay weydiin ha laygu cadaaba anige maanta waxaad samaysaan ninka dhashiina laynaya dhashiisa waa inaad laysaan ay dariiqa nin dhalinyaro ah daadiisa u dhaxaysa 8 25 ilaa 30 wixii u dhaxeeya xitaa nin weyn ma dili kartaan waa nin daadaas inaad qabataan oo u xiirtaan maanta ay dariiqa nooca uu doonay ha u socdo ama meel ka adeeganayo ama waxa weeye dawladba ha u shaqeey wuxuu doonay hada maanta waa in nin loo xiiro weeye maalinka nin loo xiiro nin waa in loo xiiro maalinta nin la dhaawaco inagu xadgudub baa sameeyna waa inaad nin dhaawacdaan qabta ama luka jara ama gacan ka gooya laakiin meel munaasab waa inaad ka dhaawacdaan oo muhiim ah arku waa sidaas weeye fariinta dhalinyarada jigjiga haddaydan fulin kareynin guryihiina iskaga noqda meeshan iyada ah waxa weeye markay dambe isku gaari doontaayo daroorinta baa la yiri markay aad u daado guriga dambe u wada qoysaa hadday wada qoysnaa qoyska guriga wada dareemayaan iyaga hadan iskaga kici doona marka waxa weeye daroorintan iyada dambe beesha wada gaari doontaa oo dambe la isku dhax qaadi doonaa laakiin maanta hawsha haddaydan fuli karin waa inaad ka baxdaan أنا أقول بدنا قشن يسوق قرية واجرة لكن ده رنتي ديدين لا يابكم له مركب وحاوي أو شو أكل جور ولا كان حور سنة عكر للي هنا إن وضو شرق ضدك وضو قرن إنسان مركب إلما هذا الريالو شدوا واقع رقم مليدين والله فعل مليدين والله ينقول قال العقل التين وقندراس لا فلادين يتشابهوا وحدين قلي أجندونا وحن واكفوا جاي والقندراس ما أنت الله قصيه وحاوي بريك مالنا الماء اللي يقول حد المحوك وقمريا نك بريشد واقع قندراس قاضي عقل حمو دقولو ما أنت هدين تا قندراس اللي قصيه بري طول قندراس كي الماء يجون يسوى كتبانين اللي يقول حد له ما عاد فايدي شد واقع وقال ولا ماها أديك الشيء هالك ولا لكويهين تقول ولا ماها وبين أنا بيني aniga oo nin jid waaqa ayaa beeninaya ogaadeen inaan walaal ahayn ma lana khasbi manni walaal Soomaali af Soomaali waa ku wada dabcan khasab maaha dadka in lagu qasbo meel oo qasab laga dhigo walaal manni laakiin dad Soomaali ah waa wadanay luqadda af Soomaali ku wada hadla waa sax laakiin walaal manni walaal waxaanuna anaga nin kasto oo bilaadanimada yaqaan Soomaalinimada yaqaana daris wanaaga yaqaana kaas ma anaga walaalanahay laakiin nin munaafiq oo laba wajiila oo dadka sabab la'aan ugu soo duulay walibana hadaa tiraado ruuxanaad ku khaldan tahay ku oranaya ma khaldani adiga ayaa qabyaanadaysta walaaltaa ku noqon meeno taa ilaahay ninka ilaahay walaal nooga ma dhigo subhanahu wa ta'ala ilaahay baan ka magan galay xisbi allah wa ni'mal wakiil baan la sharkiisa ilaahay baan ka laga magan galay marka waxa weeye jid waaqow sheekadan leeyahay ogaadeen bay walaaltihiin وأنا تكويناتان وأنا تكيل بحضان أنا تكيل بحضان وي شيء كذا اللي لي أبصمة وأنا تكيل بحضان تا إلهي إنك إلهي ولا النوغمر